والسلام على سيدنا محمد وآخر الأنبياء والمرسلين. أنكو جوجنا مانتا ومالين الصدحات عبد القادر ومركي لباد يا ساكا وحقايبينو ساكا وسوقايبينو جيري ما سوقايبينو وحنا نتجد أن مقالين الصدحات إن شاء الله. وحنا نتمنى علينا الله سبحانه وتعالى وحنا نتمنى علينا مسجد أبو بكر بن الصديق مساجد كوجوين الصومالي لا إنه ورث أمريكا كيال مساجد كاسانو قدر عمود فاونديشن هاي والنصوص شرف إلهي يعني الشرف وحنا مهدو علينا wadaadada sheekhda dadka management ka lacagta noo soo dhiibay waxaad inta kuna reer Abdulqaadir oo ka biyaantay 380 qoys insha Allah in la siin doono ilaahay oo ku mahad celiya ilaahay ku mahad bifadl Allah waxa soo qotay marka labaadna inuu mahad celiso dadkiina walaalihiina ee Soomaaliyeed ee soo xasuustay جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى إنكم سيا ولا أكثر يا تراشيكوا قد ستين إلهي بالجمال إنكم هذان هاي يدي عميد فاونديشن أمانة أيالا نقص آمين أروح الملايكة نومي بروح المكان المغني ولا لها أربع كيسان أيالا نقول إلهي إنكنا إلهي روب كاسا روب دان تاعنا إلهي روب هاي نسيب إنكنا نجا قدومة أمانة لنوسو ديبي نجا قدومة ولاليهنا الصوماليات أي نيسو دمقضينا نيسو دعاية ماشي ككينان إلهي ميلك بدنا وكانتين قفكو هدان إنكو يسكو دمقان وينو إلهينا إنو دمقانين قينا dadkii downariska ahaa ee ka dambeeyay dhaqaalahan u soo dhiibay hay'adda Amud Foundation waa hay'ad aad ogtihiin oo taqaanaan oo aan ka nasanin hawlaha samafalka ah maanta waxaan joognaa Cabdiqaadir anigu ismaan lahayn runtii dad intaa leeg oo sidaa u jooga oo khalqigaas ah ayaa maaragtay dhulkan jooga laakiin waxay ku yimaadeen baa la yiri waa dadkii qululay ee xoolihii ka hadheen ee sidaa halka ku yimideen marka runtii maanta waan siinaynaa wixii ilaahay noo soo dhiibay raashinkii Cabdiqaadir baan joognaa waxaa laga yaabaa ilaa 380 qoys inay raashin hadda qaataan laakiin u malayn maayo inay ku kaaftoomayaan dadkan waxay u baahan yihiin in marka dejin bay u baahan yihiin dejin macna halkii ay ka yimaadeen in la gaarsiiyo marka hadda waxay u baahan yihiin in la caawiyo sida ay meelahooda u gaaraan marka dadka downariska ah ee soo maaragtay soo dadaalay waxaan leenahay wali hawshu ma dhawa waa bilow waa dhiig joojintii annaga iyo cid intii naga horeysay waxa ay keeneenba waa dhiig joojin laakiin waxay u baahan yihiin in dhar bay u baahan yihiin hubay u baahan yihiin wax kaba ay gashadaan bay u baahan yihiin way kabalaayeen kuwa badan hadeer waxaan halka kula kulannay oday cagaagan oo yiri waxaan xoolahaygii qaybna way dhimatay qaarna waa tukubinayaa laakiin anigii baa cagaagay buuri marka oo dee bilaa kaba ah marka kabay u baahan yihiin dhar bay u baahan yihiin wax kasta oo bila aadan u baahan yahay bay u baahan yihiin waa laga yaabaa inaynu raashin xasuusanno iyo wax la cuno oo qof waliba xasuusto laakiin waxay u baahan yihiin kabo hubay u baahan yihiin waxay xidhaan bay u baahan yihiin aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idinku mahadnaqayaa intii damqatay meel kasta oo laga damqaday waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku daro miisaanka xasanaadka ilaahay wakaa ina dul jooga roobkii waxaan ilaahay ka baryaynaa gacantiisaan ku dhargaynaa in ilaahay noo sii daayo in ilaahay noo sii daayo raxmaddaas darkaysaan in ilaahay noo sii daayo hadda raxmad baa inoo taagan waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay noo sii daayo niyadeenna saalaxa ka dhigno aan cibaadaysanno aan tukanno aakhiradeenna aan ilaashanno allah aan ka cabsoonno haddaan alla ka baqno ilaahay baa na arsaaqay walwalina mayno abubakar masjid oo camuudna noo keentay kuwa intaa oo jida la soo maray iyo ka soo bixiyeyba ilaahay ha ka magansado annagana ilaahay ha noo barakeeyo innagana ilaahay aynii jisaaysiyo inta jidka la soo marteen intaad bixiseenba allah inaga jisaaysiyo annagana allah ha noo barakeeyo qaynaa Amud Foundation oo maraykanka maxaa ku dhacdaa masjid Abubakar oo noo soo deeqday deeqdan aad bayna ugu mahadsan yihiin
إن أنت كان أي وحقوق يقولوا وحيو باهين أي لو بسوا حيا ما لو باهين تدخل حقوق بوليتا والمقال وذاك إنسان والسلام عليكم. waxaan u mahad celinaynaa ilaahay baa horta mahad iskale kadib waxaan u mahad celinaynaa dadka gargaarka soo bixiyay ee muslimka ah ee islaamnimo u soo bixiyay iyaan u mahad celinaynaa kadib waxaan leenahay intii gargaarka uu soo gaaray wixii ka dambeeyana in la soo gargaaro dadku way dhinteen way rafteen nolol si ay ku noolyihiin waa dhibaato marka sida daraadeed waxaan leenahay intii dambena in ay soo gargaaraan baan jecelahay ay arkaan iyaan badnaad weeyaan aad baan ugu mahadnaqaynaa jaamacadda annagu waa baraysan soo gaaray aad baan ugu mahadnaqaynaa jaarkan bagaga dadkii qulay soo liitay adduunka ka soo dhamaatayna waan aad baan ugu mahadnaqaynaa waa kuwa nagu dhacay maanta sanadka maanta way nagu dhaceen arigu uu liitay ishinku uu liitay awrku way dhimatay dameeruhu way soo dhinteen tigaad baan u kulay waa soo weynay waa soo sare degnay dabadeed halkani saray waa u dhaafi keen weynay wax noo dhaqaaqaba waa weynay halkan yar magaalada ku soo jeedaan iska naalaa ciyaalku uu naga dacday uu liitay kolku caani waayay cad waayay ariga waa fijacaysa gudnihiisa dameeraha ciyaalka yarintan u dirxda ka soo dhaasana waa weynay awrta madaxeedu uu bay wax noolana qurba male kurus male dadkeega hasho ana male hadii ay dhashay iyadii neefkiiba u baxtay qof loogu geel uu isgaaray aniga wax siyaar muuqdaan iyo dhowr iyo toban oo liidanayo way badhamaadeen idaan siyaar dhiba gaar saqaan ilaahay noogu kii soo dhibay un baan iska cunaa iskaga noolaay iskaga badhaadnay inta galliga